dhismahana aragtaan waxaan u dhisan garanay mid kamid ah macaamiisheeda waxaanu ka dhisi doonaa magaalada Hargeysa gaar ahaan xaafadda Masallaha dhismahan cabirkiisa guud wuxuu ku fadhiyaa 18 mitir iyo 24 mitir dhismahani runtii waa dhismo G+1 kooban dhul fiican oo beer iyo parking ba laga dhigi karo ayaa uga soo haray macmiilka sidoo kale dhismahan wuxuu leeyahay balconies qurux badan oo ugu talagalay qofku inuu ku leedsan karo dhismahan muuqaalkiisa guud waxaad arki kartaa color combination ka aan isticmaalay ama saanu colorada isugu daray oo runtii aad u qurux badan isla markaana simple ah macmiilka waxaan gali doonaa guriga gudihiisa si aan noola soo aragtaan qaabkan u dhisan karanay in Maria wow ma sha Allah marka soo gashidba waxaad arki doontaa fadhigii iyo cuntadii iyo kitchenkii intaba maadaama ay yihiin open oo dhamaantood gurigu uu isu furan yahay luuqa yar waxa looga bixi karaa barande ama balcony kale xagga dambe ku yaala isagana waad arki kartaa corridorka guriga ama daarada gurigu sida ay waasac u tahay albaabkaasi waa kii aynu ka soo galeynay guriga oo dhan laga soo galayay oo fadhiga iyo cuntada iyo kitchen intuba way ku furan yihiin daarada sidoo kale daaqadaha dhaadheer ee iftiinka fiican iyo hawada fiican soo deynaya ayuu gurigan leeyahay kan imika waxa weeyaan halkan waa cuntadii saacadaad u eegto cuntada iyo kitchadu waa ay isku furan yihiin runtii kitchaduna aad bay u qalabaysantahay waana qurux badan tahay maasha Allah daarada ama corridorka guriga waa waasac halka waxa ka soo muuqda jaranjartii sidoo kale store ba ka hooseeya jaranjarta oo intiirada ku hooseeya store ba uga faa'iideynay xagga hoose waxa ka qoolantahay laba qol oo hurda imika qol kamid ah geli doona oo ah qol master ama suuliga soo hoosta ku wata marka soo gashid suuliga baan ku soo horeynay qolkani wuxuu leeyahay suuli u gaar ah oo magaranaysa shower glasskiisii iyo fadhigiisii iyo farxalkiisii wixiisii oo dhan ay u dhameystiran yihiin aad buu qurux badan yahay runtii waa dareemi kartaa waad arki kartaa imikana qolkii hurdada ahaa baynu geli doonaa maasha Allah waa kan qolka hurdadana waa qol waasaca runtii aad iyo aad loo qalabayay qurux badan daaqad weyn leh oo magaranaysa iftiinka iyo magaranaysa hawadaba uu ka qaadanayo macmil ka waran haddii kani gurigaagu ahaan lahaa waxaan ku soo noqonay fadhigii daaqadihiisa oo fiirso ilaa kor way isku furan yihiin waana high ceiling oo qaybtan fadhigu ilaa xagga sare waa ay u furan tahay si uu hawo fiican iyo iftiin fiican helo kanna waxa weeyaan suuligii public ahaa ee guriga oo dhan laga isticmaalay waynu geli doonaa isagana waa arki doonaa nala qiyaas maasha Allah waa kan suuligana sidan ayuu samaysan yahay muraayadihiisii meedhashadiisii farxalkiisii wixiisii oo dhan ayuu leeyahay nala wadaag tala ahaan ama ra'yi ahaan wixii aad ka qabto dhismahan gudihiisa iyo qaabku dhisan gareysan yahay imika waxaan qaban doonaa hadii ilaahay ma sha Allah xagga sare gurigan xagga hoose wuxuu ka kooban yahay laba qol iyo store iyo laba suuli intaas uu ka kooban yahay sidoo kale fadhigii iyo waxaana wada ogeyd jaranjartii bay soo marnay imika jaranjartii markaad kor soo baxdid waa kan xagga sare waxa ku yaala fadhi aan ugu talagalay family-ga oo aad u qurux badan oo TV-gii waxa la iskaga daawanayo oo sidoo kale waxa ku yaala saddex qol oo hurdooyina oo mid kamid ay tahay masterkii weyneed ee hurdadii sidoo kale halkan waxaad ka qoransan kartaa ama ka arki kartaa fadhigii hoose oo fadhiga hoose waa anigii idin sheegay waa high ceiling oo isagu ilaa xagga sare waa uu furan yahay chandeliers ama leer qurux badan baa ka soo laalaada sidoo kale xagga sare marka joogto balcony-da soo bixi kartaa wow maasha Allah imika waxaanu idinka tusaynaa muuqaalkii guud ee guriga ama marka macadeerkiisa lagu daro qaabkan ayuu samaysan yahay colorskiisa albaabku halka kaga yaalo baarkinadiisa beerihiisa waxa soo dhan wad arki kartaa balcony-da uu leeyahay muraayadu qaabkay u samaysan yihiin colorska iyo saan isu dhex gelinay ma garanaysaa midabada macmiil nala wadaag ra'yigaaga sidoo kale haddii aad u baahan tahay dhismahan oo kale haddaad u baahan tahay design waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarada shaashada ku qoran aad iyo aad ba u mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.